war-saxaafadeedkan ka hadlayay shirka Golaha Wasiirada ee Somaliland oo noqonaya kii 15aad ee golahaasi yeeshaan ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaa lagu lafaguray arrimo door ah oo ku saabsan amniga iyo horumarka qaranka waxaana warbixin dhinaca amniga lagaga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland arrimaha kale ee shirka lagaga hadlay ayaa waxaa kamid ahaa xaaladda xuduudaha bariga ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo duulaanka lala dul joogo shacbiga deegaanadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay weeraro kaga imanayeen maamulka Soomaaliya waxaana shirka lagu muujiyay sida ay Somaliland u danaynayso nabadda iyo deris wanaaga sidoo kalena waxa uu shirku cadeeyay in Somaliland ay ka go'an tahay sugidda xuduudaha iyo difaaca dhulkeeda marnaba aanay weerar ku ahayn xuduudaha dal kale isla markaana ay Somaliland beesha caalamka iyo dalalka deriska ah u xaqiijinayso muhiimadda nabadda iyo deganaanshaha gobolku leeyahay Allah mahadle war-saxaafadeedka waxa ku seexnaa afayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac Cabdikariim Saciid Saalax Hon Cable TV Hargeysa